بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، waxaan wali ku jirnaa oo aan warhaynaa silsilada la xiriira dhalinyar adduunyada wax ka bedeshay. hore waxaan usoo tilmaamnay makaanada islaamka uu siiyey marxalada dhalinyarta. quraanka haddii aan fiirino waxaan arkaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku xusay lafdhu alfitya oo laga wado dhalinyarta min alfutuwati ay alquwa. waxaa lafdigaas quraanka lagu sheegay ilaahay 10 jeer. mawaaqif kala duwan ayayna ku soo aroortay. mawaaqiftaas oo dhanna gaalibka waxay dul wareegaysaa waxqabad iyo tacaawun iyo xoog lagu xisayo laguna amaanayo dhalinyarta. waxaa ala sabiil mithaal Allah subxaanahu wa ta'aala uu sheegay qisatu Ibrahim alayhi salaam markii asnaamta uu burburiyay oo ay dhaheen man facala hada bialihatina innahu la min adh-dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. wa fata wa dhalinyar da'yar محطم الأصنام الخليل إبراهيم عليه السلام marka uu burburinay oo dadka dacwada tawxiidka ugu yeeray wuxuu ahaa dhalinyar da'diisu ay yar tahay. Yusuf عليه السلام hayta lak markay ku tiri oo uu oranayay macaad Allah wuxuu ahaa dhalinyar da'diisu ay yar tahay. Ibn Abbas radiyallahu anhuma wuxuu leeyahay ma ba'atha Allahu nabiyyan illa fatan. nabi kastoo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu soo diray wuxuu ahaa nin dhalinyara. meeshaas marka waxaad ka fahmaysaa marxalada oo qofka naftiisana uu anfacayo, dadkana uu anfacayo, ummadana uu wax u qabanayo kaliya inay tahay marxalatu shabaab wa alfutuwa. maanta waxaan rabnaa laba tusaale inaan soo qaadano oo ka mid ah jiilka shabaabka oo dunida wax ka bedelay. tusaalaha koowaad waa Muhammad ابن القاسم الثقفي. محمد بن القاسم الثقفي وحنا على عصر الأمويين، وأنا المأذير الحجاج بن يوسف الثقفي أي وحي أهاي المأذير. محمد بن القاسم الثقفي وانك فري بلاد السند، بلاد كلو يقان باكستان هندي يوحكا أقدو. da'diisu waxaa lagu tilmaamaa xilliga uu furayay 19 jir ilaa 20 waxa u dhaxeeyo 19 jir iyo 20 jir qaa'id muslimiinta looga dhigay oo qaarad dhan furay. haddii ay wax tusto waxay tusinaysaa in waxqabadku uusan ku xirneen da oo uu ku xiran yahay himmada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofka uu geliyay iyo cilmiga iyo waxgaradka la siiyay iyo qof kastaba meesha ay u joogto cilmiga iyo macrifada. shakina kuma jiro xilliga ay ugu dhameystiran tahay malakaadka oo dhan qofku waa markuu dhalinyarta yahay. Muhammad ibn Qasim al-Thaqafi jaysh dhameystiran oo buuxo ayaa qaa'id looga dhigay. waxayna himadiisu ahayd inuu furo bilaad al-hindi wa sind, bilaad kale oo yaqaan. السندنا وباكستان، الهندنا واليقان. وكوغول محمد بن قاسم الثقفي وحولبا كغالب نقضي بقر كحليا جوجي او لو يقان الملك داهر oo nin laga cabsanayo oo aan lagu dhiiran karin in la dagaalamo ahaan jiray. laakiin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu u fududeeyay in arintaasi ayada ah hoggaanka muslimiinta loogu dhiibay Muhammad ibn Qasim al-Thaqafi inuu ku guuleysto. waxa xilka u dhiibay al-Hajjaj ibn Yusuf oo la yaqaan asaga oo indhihiisa ka akhriyay macaalim al-dhakaa wal-quwwa. al-Hajjaj nin qaa'id ayuu ahaa, dhibaato badan muslimiinta uu u geystay. waxay ahaata hadana qaa'id quwaada muslimiinta kamid ayuu ahaa. wuxuu markaa ka akhriyay indhaha Muhammad ibn Qasim
wax badan oo tusinaya ninkan inuu ahal u yahay una u qumi kara shaqada ayada ah وفعلا firaasadaasi way dhabowday arintaasi ayada ahna Maxamed ibn Qaasim al-Thaqafi jeyshka muslimiinta oo dhan uu hogaamiyay una ku guuleystay inuu furo bilaadu Pakistan wal Hind shakhsiyada labaad waa Muhammad al-Fatih محمد الفاتح وسلطان كمذا سلاطين العثمانيين بريهن أدوحى الله هذا الهيا أي صوفيا مسجد كي كنيسة أهان جري أو مسجد أهان الوسع علي وحامركز أيضا على حسوسنا يا محمد الفاتح محمد الفاتح أنت أنا كهدلن وحاربنا إن أندول استاغنو القسطنطينية محاولات فتحها من قبل المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام وحلقوري إنه يري لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش أما أنت النبي عليه الصلاة والسلام ومسلمين تقول بشاري إن قسطنطينية فريدونه أونا أماني أمير كذا يا جيش كذا أي أمير كستو أو مسلم وحي قلين جرتي يا خليفة كستبا إن أو محاولة إن أو فرق قسطنطينية سوء وهلو بشارة النبي عليه الصلاة والسلام يا أمانة يا دعاء محاولة دي هريسي وحي اسكو دي معاوية بن سفيان رضي الله عنه وإلى إلا بجير وكلا دوان أدري عيدا اسكونا دي لكن أين أقرنين أنكو قوليسن waxaa hadana muxaawaladii labaad sameeyay isku dayay Suleymaan ibn Abd al-Malik oo xataa juhdi badan ku bixiyay iyo waqti badan iyo inuu dhiso ciidan tababaran oo xoog badan oo muhiimadaas uu ka shaqeynayo arintaas ayada xulm uu ku riyoodo ay leeyahay Suleymaan ibn Abd al-Malik oo fikirkiisa himadiisa uu galiyay balse maysan qorneen inuu ku guuleysto الدولة العثمانية مركي تمد waxaa isku dayay Bayezid al-Awwal Murad al-Thani umara farabadan intuu maysan ku guuleysan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu qoray Muhammad ibn al-Fatih asagoo dhalinyara waxa lagu sheegay da'diisa markii uu furayay inay ahayd 22 jir 21 22 iyo xuduudaas waa namuudaj cajiib ah oo qof kastaba uu la yaabayo 22 jir 21 jir waxa isku dayeen khulafo fara badan oo ka horeysay oo ka waaweyn kana khibro badan kana awood badan ay ku guuleysan waayeen inuu ku guuleysto Muhammad al-Fatih Muhammad al-Fatih marka uu yaraa ayaa waxa lagu barbaariyay xifdul Qur'aan al-Kariim asagoo yar ayuu Qur'aanka xifdiyay asagoo yar ayuu wuxuu bartay fiqhiga iyo aqeedada iyo culumta shariicada waxa lagu tababari jiray jihaadka tababar dhameystiran ayuu qaatay asagoo da'yar habka hubka loo isticmaalo cadawga la iskaga dhiciyo loo difaaco loo hujuumo intuba tababar ayuu ku soo qaatay asagoo da'yara walidalik himadiisa dhan waxay ahayd maalintii uu yaraa inuu u diyaarin jiray inuu naftiisa u diyaarin jiray inuu noqdo qaa'id kamida qaadada muslimiinta laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qoray in uu noqdo dadka farakutiriska ah oo ma garanaysa taariikhda ay xusayso laguna qorayo sijilligiisa fi sahifatin min dhahab Muhammad al-Fatih arintaas ayada ay wax badan ka shaqeynayay uuna ugu talagalay asoon u qasdayo in uu haleelo bishaarada nabiga kaleeyhi salaatu wassalaam iyo amaantaas la amaanay amiirka iyo jeeshka furay Qasطنطينية القسطنطينية waa magaalada Turkiga ku taal oo loo yaqaan maanta Istanbul caasimada u ah caasimada ku xigta Muhammad al-Fatih muddo dheer ayuu wuxuu ka shaqeynayay ciidan dhameystiran oo diyaarsan oo tababaran in muhiimadaasi ay ka shaqeeyaan
wuxuuna ogaa dad badan oo ka horeeyay inay isku dayeen ayna ku guuleysan. waxay lahayd xusuun iyo guryo aad u waaweyn oo ay iskaga difaacayaan Byzantiniyiinta iyo dadka xilligaas xilka u hayay gaalada ay iskaga difaacayeen muslimiinta muxaawalaadka ay sameynayaan oo dhan. balse Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qoray 13 qarni kadib ama 11 qarni kadib in uu ku guuleysto Maxamed al-Faatix inuu furo Qustantiniya oo jab aad u weyn oo lama filaan u geysto cadawgii xilligaas joogay. marka uu furayna Allah subhanahu wa ta'ala ayuu ku mahdiyay uuna sujuuday sajdat shukr. kadib wuxuu u xawilay ama u bedelay kaniisadii Aya Sofia ayuu wuxuu ka dhigay masjid. waxaa la sheegay inuu gatay kaniisada masjidna uu u bedelay kadib. riwaayaad kala duwanna way sheegayaan waxyaalo kale. maqsuudka ugu dambeeya wuxuu yahay in kaniisadii loo bedelay masjid sida ay ku timaadaba. masjidkaas oo kamid ah min mafaakhir almuslimiin waxyaalaha muslimiinta ay ku faanaan taariikhna u ah magaciisana la xiriira Maxamed al-Faatix ayaa wuxuu u noqday calaamad lagu garto Fathul Qustantiniya. طبعا sida aan la socono maalmahan aan joogno waxa xusid si gaar mudan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga mahdino masjidkii muslimiinta ay fureen oo haddana markii laga qaalib noqday muslimiinta fiima bacdu kaniisad loo bedelay ilaa ay Ataturk mutxaf uu ka dhigay in maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku soo celiyay daartii muslimiinta oo uu ka dhigay masjid Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu xusayo. waa arin Ilaahay subhanahu wa ta'ala looga mahdiyo muslimiinta oo dhan ay ku farxaan. cid arintaas oo kale aan ku farxeen oo aan soo dhaweynayna islaamkooda ha tuhunto. waayo guri Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu caabudayo qof inuu san ku farxin oo waxyaalo kale iyo ajinda kale uu ka fiiriyo waa arin dhibaatadeeda leh. mar alla markuu furay Qustantiniya wuxuu u bixiyay Istanbul ama waxa la yiri Islaambul ay asalkeeda ahayd oo waxa laga wadaa Daarul Islaam Islaambul. kadib ayaa waxa loo bixiyay magaaladii Istanbul. idan walaalayaal waxaan ka fahmaynaa qisadaas ayada ah oo Maxamed al-Faatix magaciisu xataa al-Faatix loo bixiyay in da'daasi iyo Maxamed al-Qaasim oo ka horeeyay iyo tusaalooyinkii hore aan soo sheegnay oo dhan in jiilka shabaabka haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ku xirmaan himmadoodana ay kor noqoto in ay wax badan bedeli karaan oo muslimiinta ay u gargaarayaan. laakiin arintaasi waxay u baahan tahay midda koowaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoonka inuu khayr la doono waafajiyo iyo qofka in hanuunka asbaabtiisa uu la yimaado oo uu raadiyo. meesha Maxamed al-Faatix taariikhda uu ku xusayo in maanta dhalinyartii islaamka laga sugayay in ay dhameystiraan dowrkiisii in maanta dhalinyartii islaamka ay ku daydaan gaalada oo dhaqan iyo diin iyo caado ay ka qaataan himmadoodana ay noqoto waxa ay cunayaan iyo waxa ay cabayaan iyo waxa ay isku qurxinayaan. waa farqi u dhaxeeyo jiilka maanta jiro iyo jiilkii himada lahaa. waxaa marka u baahannahay qisasta noocaas oo kale inaan aad u akhrino siyartaas inaan aad u mutaalacayno in qof kastaba ay ku dhaliso marka koowaad naftiisa inuu wax ka bedelo calaaqada Allah subhanahu wa ta'ala uu la leeyahay calaaqada naftiisa uu la leeyahay mujtamaca sugayo waxa laga doonayo oo aan laga filanaynin qof kale cid kale inaan laga filanaynin waxa aan ka ahayn dhalinyarta. in marka qof kastaba uu iska dhigo ninkii la sugi lahaa asaga inuu yahay oo muslimiinta iyo dalkiisa iyo mujtamaciisuba ay sugayaan. haddii qofka uu ku xisaabtamo fikirkaas oo kale himmadiisa kor ay noqonaysaa waxaana u fududaanaya khatawaat in uu hore u sii socdo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu waafajiyo. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.